Bilowga sheekada waxaa nala tusiyaa nin lagu magacaabo Joy, kaasoo ka shaqeeya shirkad. Joy wuxuu ka yahay shirkadda maamule. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Joy meel beelaya. Markuu miilkiisa soo laabto, wuxuu arkayaa asigoo ku xiran qol xabsi ah, waxaana ku yaal qolkaas 4 darbi oo waaweyn iyo ganjeel bir ah. Joy wuxuu la yaabayaa cidda asiga meeshaan keentay iyo qaabka uu ku soo galay meeshaan. Joy wuxuu isku dayayaa inuu ka baxo meeshaan. Wuxuu soo aadayaa dhanka albaabka, wuuna qaylinayaa, laakiin cid u jawaabaysa ma laho. Dhanka kale, qolka asiga ku dheggan ayaa waxaa ka soo hadlaya maxaabiis. Maxaabiiskaasi ayaa waxa uu sheegayaa inuu Joy qaylada iska yareeyo, cid u jawaabaysana ma jirto. Joy wuxuu soo aadayaa dhanka maxaabiiska, wuxuuna weydiinayaa maxaabiiska magaciisa. Maxaabiiska wuxuu ku jawaabayaa magaciisa inuu yahay Nate, wuxuuna u sheegayaa Joy in asigoo kale meeshaan sidaasoo kale uu ku imaaday. Joy wuxuu leeyahay maxaa ka qaldan meeshaan. Maxaabiiska wuxuu u sheegayaa inuu isku dayay marar badan inuu ka baxo halkan, laakiin ay u suurtageli waysay. Joy markuu maqlo midaan aad ayuu u naxayaa, wuxuuna ka soo tagayaa maxaabiiska. Wuxuu soo aadayaa dhanka albaabka, waxaa u imaanaya waardiyihii kaasoo u wada raashin. Joy wuxuu la hadlayaa waardiyihii, wuxuuna u sheegayaa xaaskiisa inay tahay uur. Waardiyaha wuxuu ku leeyahay aniga meesha ma joogi karo, ha la iga saaro. Laakiin waardiyaha Joy uma jawaabayo. Albaabka ayuu wuxuu uga qabanayaa gacanta. Joy gacantiisa dhaawac ayaa soo gaaraya. Joy markuu ogaado midaan wuu yaabayaa, wuxuuna ogaanayaa meeshan inay tahay meel halis badan, dadka joogana ay yihiin dad halis ah. Joy habeenkii dhulka wuxuu ku arkayaa qolofo bini'aadan. Markuu arko midaan wuu naxayaa, wuxuuna ka soo cararayaa meesha. Wuxuu u imaanayaa maxaabiiskii kale ee Nicky, wuxuuna weydiinayaa waxa meeshaan ka dhacay. Wuxuu leeyahay qolofofkaas bini'aadanka aan soo arkay yee ahaayeen. Ninkina wuxuu u sheegayaa meeshaan in ay ka jirto waxyaalo fool xun. Wuxuu kaloo ku leeyahay meeshaani waa meel halis ah, deganaan waa inaad ku joogtaa, wax walba adiga ayaa dareemaya. Joy meesha ayuu ka soo tagayaa. Habeenkii waxaa darbiga ka soo muuqanaya calaamad, waxaana kala soo hadlaya kombiyuutar. Wuxuu u sheegayaa Joy in ay jirto ciyaar, wuxuuna ku leeyahay waxaa lagaa rabaa ciyaartaas wareegga koowaad inaad keento 50. Qofkii wareegga koowaad 50 ka hoos mara wuxuu u sheegayaa in uu mari doono ciqaab. Joy wuxuu la yaabayaa ciyaartan loo sheegaya asiga, wuxuuna ogaanayaa in ay ka dambeeyaan qorshaha oo dhan shirkadda asiga oo ka shaqeynayo. Waayo shirkadda asiga oo ka shaqeynayo ayaa nidaamkan u dhaqmi jirtay. Shaqaalaha marka ay galaan qalad ayay waxay ku samayn jirtay nidaamkan. Joy wuxuu leeyahay cid kale kama dambeyso ee shirkadda aniga ka shaqeynaya ayaa ka dambeyso qorshahani. Joy kombiyuutarkii ayaa ku soo laabanaya, wuxuuna ku leeyahay waxaa lagaa rabaa 12 subaxnimo laga bilaabo ilaa 4 galabnimo inaad shaqeyso. Wareegga koowaadna waxaa lagaa rabaa in uu keeno 50 dhibcood. Joy waxaa kaloo loo sheegayaa ciddii ka hoos marta wareegga koowaad 50 dhibcood in uu mari doono ciqaab adag. Joy markuu ogaado midaan aad ayuu uga yaabayaa. Subaxdii dambe waxaa la gaarayaa xilligii shaqada. Joy wuxuu imaanayaa dhagax shiidkana waa mid aad u adag, lama riixi karo. Joy maalintiisii ugu horreysay wuxuu bilaabayaa shaqadiisii ugu horreysay, wuxuuna bilaabayaa dhagax shiidkii in uu riixo. Dhagax shiidkan waa mid aad u culus oo lama riixi karo. Joy maalintaas wuxuu gaarayaa 100 dhibcood ayuu keenayaa Joy. Wuxuu ku noqonayaa guuleystaha maalintaas guuleystay Joy.